تامر كان كسو قدبو طلبات runtii waxaan ka mid ahay dhalinyarada ay soo sponsoreen programkan Iskarto community-ga Soomaalida ka jira gobolka Edmonton community-ga Soomaalida markii koobaad si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen oo waxay noogu yimaadeen ilaa iyo laga soo bilaabay imaanshihii wadanka ilaa iyo deegaameyntii waxaas oo dhan way naga soo dhaweeyeen runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waa marka koobaad ee wadankan qofku markuu wadan ku cusub yahay yimaado isla markaana uu yahay qof wax soo bartay runtii way adag caqabado badan baa ka hor imanaya qofka lama nooran karo kow iyo laba marka waxaan ka mid ahay anigu dhalinyarada markii koobaad wadankooda wax ku soo bartay waxbarashada jaamacadaha ka soo baxay isla markaana jaamacadda heerka labaad rabay inay u gudbaan markii aad wadan cusub timaadid isla markaana wadamada ka horumarsan adduunka ka mid ah way adag tahay waxbarashadaadii iyo aqoontaadii hore in lagu tixgeliyo laakiin marnaba cid lama dhexaysid marka wadankan markii aad timaadid runtii waxa kugu adkaanaysaa inaad shaqo hore u heshid shaqooyinka aad doonaysid inaad hore u heshid aad bay adkaanaysaa marka caqabadaha kadib iyo jawiga wadanka oo xoogaa waxaan kusoo beegmay isagoo winter ah runtii taasina caqabad bay ahayd laakiin dhib ma lahayn taasi waxa ugu weyn waxay ahayd shaqo la'aanta kadib waxaan nimi programkan baan soo ablay Iskarto runtii programkan dad badan baa ka aflaxay oo anigu aan ka mid ahay isla markaana dadkii magaranaysa aniga ila midkaan programkan helin wali wadanka iyagu lama qabsan laakiin anigu all the way markiiba waan la qabsaday marka programkan bixinaysay Iskarto 3 bilood buu soconayay 3 bilood oo lagu training qof kasta wuxuu magaranaysa experience-ga uu doonayo مثلا computer skills kan baranay waxaan baranay work place environment-ga baranay waxaan baranay kale safety foodka waxaan baranay kale community and communication community sida loo xiriirayo wadankan مثلا markaad wadanka ka timaadid aad Soomaaliya timaadid way waxa rabaa wadankeena si wacan u dhexgashin marka waxyaabahaas oo bay naga caawiyaan مثلا waxa jira qofka inta badan wadankan imanaya raba inuu shaqeeyo isla markaana doonaya banaanada inuu ka shaqeeyo kale gobolka Edmonton kale gobolka Canada wuxuu ka mid yahay shidaalka laga qodo marka waxaad u baahan tahay kaarad lagu tixgeliyo isla markaana aad haysatid iyaga naga caawiyo la siiyay runtii personal waxay naga caawiyeen oo kale qofka shakhsiyadiisa waxyaabo isku dhisayo sida budget planning iyo kale runtii lama soo koobi karo waxyaabahan meesha ka faa'iidnay isla markaas 3 bilood kadib markaan dhamaysanay waxay nageeyay shaqooyin runtii aan ku aflaxno aad u wanaagsan marka aad waxaan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo programkan Iskarto ka gacan geysata ay ugu horeysa dawladda Canada runtii oo dadka community-ga iyo Soomaalida marka muhaajiriinta wadanka ku cusub iyagu gacan siiya soo dhaweynta